gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag dhawaan loo soo magacaabay ayaa waxa uu xilkii maanta kala wareegay ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag oo isagu ku meel gaar ahaan xilkaasi u sii hayay kadib markuu dhawaan geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Ani Saalax Xaaji Xasan waxaana munaasabadan xil wareejinta oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka heer gobol mas'uuliyiinta waxbarashada xildhibaano golaha deegaanka Ceerigaabo aqoon-yahano madax dhaqameedyo marti sharaf kale ayaa waxa ugu horeyn halkaasi hadalka isaga dambeeyay kusimaha gudoomiyaha waxbarashada Sanaag Axmed Ciise Cabdi ee xilkan wareejinayay iyo gudoomiyaha cusub ee waxbarashada gobolka Sanaag Cabdulle Maxamuud Maxamed waxaana hadaladoodii kamid ahaa marka hore waxaynu ka taasoo direynaa gudoomiyaheenii hore halkan ka geeriyooday wuxuu Ani Saalax Xaaji Xasan Allah yarxamo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxbarashada gobolka Sanaag waxay xukuntaa ilaa iyo ceelaayo mushaarka halkan loogu sameeyaa inta oo aan soo sheegay oo dhami halkay ka qaataan baymadka waxaana u saxeexaa gudoomiyaha waxbarashada halkan markaa jooga iminkana halkan waxaanu xilkii ku wareejinayaa anigoo ku sisimihii ah gudoomiyaha waxbarashada gobolka waxaan xilkii ku wareejinayaa gudoomiyaha loo soo magacaabay Cabdulle Maxamuud Maxamed iyadoo hawshaasi aanu si wada jir ah oo gacanta isu qabsanayno ugana wada shaqeynayno wixii hawleey noo yaala ee noo qabiyaa iyadoo qoraalana waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha cusub wabillahi tawfiiq kaadii lagu wareejiyay waan gudoomiye intii itaalana de waa ku shaqeyn doona hadii la yiraahdo waliba de waxaan jecelahay dadweynaha maamulada waxa soo dhamidey inay ila shaqeeyaan ya iyo kormeerayaashaba waayo qof kaliya de wax ma qaban karo hadii aan hareeraha laga hayn marka waxa weeye wixii dambena waa laga wada xiriir doonaa intaasaan ku soo gabagabeynay waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta waaxaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada Sanaag xildhibaan Xasan Nuur oo ka tirsan golaha deegaanka Ceerigaabo iyo Boqor Maxamed Boqor Axmed ayaa iyagana hadallo kooban oo ay munaasabada ka soo jeediyeen waxa kamid ahaa sidan waxbarashadu waxay salka dhigatay maalintii nin reer gobolka ah oo dadkii kala garanaya oo ehliyada degan garanaya magaranaysa dhammaan daafihiisa oo dhan loo magacaabay Ani Saalax Xaaji Xasan maalintaas ayay salka dhigatay aad iyo aad buuq iyo qiilo ku jirtay xilliyadii hore oo gudoomiyaal meelo kale laga keenay la keeni jiray oo inta ay gobolkan darsayaan ayaa waqti badan qaadan jirtay dabeetana dhaadhac badan ayaa iman jiray dabeetana waxbarashada gobolku hadii jiro wax laga sheegi jiray iman jirtay maalintii Ani Saalax Xaaji Xasan loo soo magacaabay ayay salka dhigatay laana maxay wuxuu ahaa qof kala garanaya faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu wareejinayo gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag marka hadalka maanta ka furan halkan waxa weeyaan oo kaliya sidii aanu gudoomiyihii hore ula shaqeyn jirnay ayaanu gudoomiyahana ula shaqeynaynaa xilkan loo dhiibay oo xil culusana wasaaradda waxbarashadu waa meelaha ugu adag ee maaragtay shaqadooduna ugu culus tahay waanu la qabanaynaa isagana waxaanu ugu duceynaynaa in Ilaahay xilka u fududeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Boqor Maxamed Axmed Cali Ducaale gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag aqoon-yahanka culimaawidiinka iyo dhammaanba inta ka soo qayb gashay xafladda tan kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xirweeleyshinta tan Cabdulle Maxamuud Maxamed oo dhashay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo inuu maanta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag u noqdo xilkana maanta uu kala wareegay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Cabdulle waxaan leenahay xilka Ilaahay ku fududeeyo waxaan aad iyo aad runtii aan mafsuud uga ahay sida loo sheegay Allah u naxariistay marxuumkii Ani Saalax Xaaji Xasan marka la eego wasaaradda uu mas'uulka ka ahaa iyo caruurta uu mas'uulka ka ahaa caruurta waana kugu ducaynaa xilka Ilaahay uu ku fududeeyo waxaan ka codsanayaa dhammaan qolada bahda wasaaradda waxbarashada iyo maamulka dhammaan wasaaradda kala duwan iyo dadweynaha inay la shaqeeyaan runtii maxay tahay wasaaradda waxbarashada iyo
cabdalle maxamuud oo xilka cusub loo magacaabay in lala shaqeeyo anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo anigoo afkooda ku hadlaya waxaan ballan qaadaynaa inaan kula shaqeyn doono insha Allah tacaala xilkana Ilaahay ku fududeeyo assalaamu calaykum ugu dambeyntii kusimaha ahna ku xigeenka badhasaabka gobolka Sanaag Naalaye Axmed Jaamac oo munaasabadan soo gabagabeeyay ayaa waxa uu yiri siduwaha cusub xilka cabdalle maxamuud maxamed waxaan kaloo halka tacsi uga dirayaa marxuumkii halkan siduwaha ka ahaa dhawaan dhintay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay godka ha u nuuriyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay dambigiisa ha dhaafo cabdallana waxaan ballan qaadaynaa in sidii aanu siduwaha hore u wada shaqayn jirnay aanu wada shaqayn doono lana shaqayn doono garabna istaagi doono cabdallana waxa loo dhiibay meel xasaasi ah oo waa wasaaradda waxbarashada wasaarad aad u ballaaran waxaana ilaahay mahadiyay inuu yahay nin dadka ah oo reer Sanaaga oo dadkii oo dhan kala garanaya insha Allah waxaan leenahay isagana ilaahay xilka u fududeeyo ilaahay ku asturo waana la shaqaynaynaa oo garab istaagayna Saciid Muuse Faarax SAB TV magaalada Ceergaabo